بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى محله مدحوينها دلك جمهورية سومالان مدن مسبح عبدي يوفتي بلارن وهجامينيو أيام ما تسوق جاري مجال الجبيلي حرونت الجبل كجبيلي مدحوينها يوفتي جيسو وحكسوا كعتمان ساكا مجال البورمة حرونت الجبل كعوضل ومدحوينه كسرنا لبدي حبينه قدام بيجي يسوق مالتي السبت دي كلا قيب قلين شبنتي جامعة عمود maalintii shalay ahaydna uu madaxweynuhu kormeer ku maray mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha magaalada Boorama isagoo qaarkood furay kuwa kale indheeyay sidoo kalena booqday xarumaha maamulka gobolka iyo degmada iyo xarumo kale oo dawladdu ay leedahay oo ku yaala magaalada Boorama wuxuu kulamo la qaatay muddadii uu ku sugnaa madaxweynuhu magaalada Boorama qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada saaka subaxii hore uu madaxweynuhu ka soo kicitimay magaalada Booramana wuxuu soo gaaray xarunta gobolka Gabiley magaalada Gabiley iyadoo si ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen maamulka gobolka ka degmada iyo shacabweynaha reer Gabiley kantaroolka daanta galbeed ee magaalada Gabiley halkaas oo madaxweynuhuna uu socod dheer oo luga ku dhaxmaray isagoo shacabkii soo dhaweynayay dareenkooda la wadaagaya dadweynaha reer Gabiley oo sharciyada waaweyn ee magaalada Tubnaa ayaa madaxweynaha ku soo dhaweynayay caleemo qoyan calanka Soomaaliland iyo dareen ay ka muuqato jacaylka iyo laxjaclada ay u qabaan madaxdooda iyo madaxweynahoodaba guud ahaan waxaan u mahad celinaynaa shacabweynaha gobolka Awdal maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama sidii diiraneed ay madaxweynaha ugu soo dhaweeyeen markii uu gaaray magaalada Boorame sidoo kale waxaan si aad u weyn ugu mahadnaqayaa shacabweynaha magaalada Gabiley maamulka gobolka iyo kan degmada soo dhaweyntii diiraneed ay madaxweynaha ku qaabileen madaxweynuhu wuxuu ku sugnaan doonaa magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley wuxuuna la kulmi doonaa maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa saxaafadda ee gobolada Awdal iyo Gabiley aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh